محمد بل خير نساء المطلب لخديجة بيت من قصب في الجنة خال من نصب أولى زوجات محمد بل خير نساء المطلب من منها غارت عائشة ما الغيرة إلا عن غلبي من منها غارت عائشة ما الغيرة إلا عن غلبي ذكراها ظلت ماثلة في ذهن رسول خير نبي لخديجة بيت من قصب في الجنة خال من نصب أولى زوجات محمدنا بل خير نساء المطلب إذ نودي من روح أعلى في الغار ليقرأ عن كثبي إذ عاد تمور فرائصه لتزمله خوف العقب وتشاور شيخ قبيلتها في الأمر وتسأل عن سببي خديجة بيت من قصب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد كلمتنا وحا أي نقول إن شاء الله بعض وصايا الرسول للنساء دردارنا دي نبي محمد وسيي دمركا دردارنا دا قاركود ما ودا دمين كرنا دردارنا دو مدى سيين وقيب كميدا ودمركا وكولات لينيو دردارنا دا سي وحقوق لقول لي هاي دمركا oo qaarkood la xidhiidhaan xagga naftooda qaarna ay la xidhiidhaan xagga raggooda qaarna ay la xidhiidhaan xagga ubadkooda iyo ummadda ay la nool yihiin waa wixii uu ku hagaagi lahaa adduunyo iyo aakhirada inanta ama oorida muslimadda ah ee ifka joogta waqtigo maadaama uu kooban yahay kama wada hadli karno xuquuqda ragga iyo dumarka goobtan iyada ah ay isku leeyihiin maadaama goobtan xaawalay ay fadhido raggiina uu ka maqan yahay midhkiina in laga fuur yeelaabaa munaasiba ama waajibka laydinku leeyahay ragga marka lala joogana wixii xaq loogu leeyahay in lagala hadlo weeye sidaa daraaddeed ayaynu ka faa'iidaysan doonaa kelmadeennan wixii xaq laydinku leeyahay waxaynu odhan karaynaa waa fursad laydiin saamaxay oo laydiin sahlay oo u soo ururteen inaad ka cabtaan xigmadda samaawiga iyo waxyiga waxaa idinla gudboona kow ah haddii laydiin dadaalay oo culimo laydiin soo ururiyey oo aqoon diiniya laydiin keenay inaad qaadataan haddii la qaato waa aayo iyo faa'iido aada u qiimo badan haddii la qaadan waayana waxay noqonaysaa xujatun calayk wax lagugula xisaabtamo xilku fulay oo lagugula xisaabtami doono weeye marka u horeeya dardaaranadu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah saddex arrimood midna yaan la dibdhigin buu idhi alsalaatu idaa atat waljanaasu idaa xadarat walayimu idaa wajadat kuf'a xadiidkaasoo tirmidi uu warinayo culimmada qayb ka midiina darajadiisa ay xasan ku tilmaamaan salaadu hadday timaaddo rag iyo dumar midna inay la dibdhiga ma aha ee salaada wakhtigeeda in la tukado wey
haddii aad gurigaaga ku tukanayso iyo haddii masjidka lagu tukanayo labadaba. arrinta labaad uu nebigu dardaarmay waxa weeye calayhi salaatu wasalaam jinaasadu kolka ay timaado ama naftuba qofka kolka ay ka baxdo wax loo dibdhigaa ma jiro, laakiin waa in lagu dhaqsadaa qofkan sidii loo aasi lahaa, waayo ama shar ha u ahaata ama khayre xabaashiisunba xaasilo ah. midhka saddexaad uu nebigu dardaarmay waxa weeye ruuxa dumarka ah ee qaangaadhka ah ama carmal ha ahaato ama inan ha ahaato, marka ay hesho qof kufu ah oo gayaan u ah in loo guuriyo. waa dardaaranadu dumarka iyo raggaba u jeedinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam, ama aan nidhaahnee dadka hablaha mas-uulka ka ah. taasi wuxuu ku dhiirigelinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam si ruuxa dumarihi lamaanaheedii ay u hesho, si bulshaduna ay u asturnaan karto, si hadafkii loo gaadho adduunya iyo aakhiraba, ilaa qof waliba lamaan u buhigsanayaae in guurka la dhiirigeliyo. walaalayaal, maanta arrinta guurku way yar tahay, caqabado badanna waa la hordhigaa, intooda badanna caqabadaha dumarka ka mas-uula, iyagoo ka fikiraya dhaldhalaalka adduunyada ayaa dhallinyaradii wiilal iyo gabdhaba wax badan oo kharash adduunyo ah oo aan waxba ka taraynin dhismaha qoyska ayaa lagu hor joogsadaa. wuu diidan yahay taa rasuulku sala allahu calayhi wasalam. markaa waxa uu ina farayaa inan iyo gabadh mid kastaba ha ahaato in loo guuriyo oo guurka lagu dhiirigeliyo. mushkiladda guurku ama guur la-aantu way ku badan tahay dadka dabadda iyo dadka gudaha labadaba, laakiin faanka ay soomaalidu isu faanayso ama ha isugu faanaan adduunyada ay soo urursanayaan iyo alaabta, ama ha isugu faanaan xagga qolada, faankaasibaa wuxuu ka hor joogsadaa habluhu rag kufu ah oo ay guursan lahaayeen. marka taa wuu ka soo horjeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. dumarow, taa dhinaciina inaad ka dhiirigelisaan aad bay waajib u tahay. siradaynu kaga baxsanaynaa, inan xumaataynu kaga baxsanaynaa, dad mujtamac kala durugsan oo kala fakadaynu kaga baxsanaynaa. waxaa kaloo rasuulku sii raacinayaa sala allahu calayhi wasalam, marka qofkan loo guurinayo in loo guuriyo uun qof diin iyo akhlaaq leh. haddii diin iyo akhlaaq loo eego, dunyo la waayi maayo, dad la socodna la waayi maayo, inanta daryeelkeediina la waayi maayo. haddii se loo eego sida wakhtigan dambe badan weeyaane, baasaboor muxuu sitaa ninkan ka soo dhaadhacay debadda, ama waddankeebuu ka yimi, ama lacag muxuu sitaa iyo adduunyo intuu leeyahay. haddii arrimaha loo eego meel dheer sii gaadhi mayso. wuxuu rasuulku leeyahy idaa jaa-akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh wailaa takun fi lardi fitnatun wa fasaadun cariid, calaa macnaa xadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. ummaddeenna islaamka ah buu la hadlayaa ee hooyooyinkiinu ka kow tihiin. marka uu idiin yimaado qof diintiisa iyo akhlaaqdiisa ka raali tihiin, u guuriya hablaha. haddaad taa yeeli weydaanna waxaa dhici doona fitno iyo fasaad, waxaan la mahadinin weeye. waa innaga aragnay oo dhibaataa ku timaada hablaha, hooyada iyo aabbo midna aanu ku farxin. marka taa in aad iyo aada loogu fikiro weeye, iyada oo loo meeldayayo dadka saalixiinta ah ee diin iyo akhlaaq ku wanaagsanna loo guurinayo. marka taasi waa dardaaranka koowaad ee rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ummaddan islaamka uga tegay ee kow ka tihiin haddaad tihiin xaawalayda. haanina gunbay ka tolantaabaa laydhaa. arrimahan guurka iyo qoyska iyo hablaha marka laga hadlayo, aabbuhu kaalin weyn kuma laha, waa meherinta uun, laakiin kaalinta tabaabushaha iyo talada iyo aqbalka intaba waxa ku leh hooyada. taa ina aada uga fiirsataan oo dhaqankeenii hore ee iskaga salaysnaa jaahiliyada iyo dhaldhalaalka adduunyada kaa inaa ka tanaasushaan waa midhuu nebigu inoo dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam.
dardaaranada waxaa ka mid a nebigu dumarka u dardaarmay at-tarhiib min an tatazawaja almar'atu bigayri idni waliyiha waxaan bannaanayn gabadhu inay guursato ehelkeeda idankooda la'aantii ciddii xaq u lahayd inay gabadhan guuriso ama ay meheriso iyadoo iska weydaaranaysa intay nin jeclaatay taana wuu ka digay rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam markaasaa waxa uu leeyahay ayumaa nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatil xadiidkaasoo darajadiisa xasan lagu tilmaamay gabadha guursata iyada oo aan la tashanin ama aan idan ka qaadanin ninkii ehelkeeda ahaa waa aabbo awow walaal adeer ciddii kolba guurin lahayd u soo horraysay weliga kaasaa la yidhaahdaae hadday iska guursato guurkeedu waa baatil buuhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam taana hablaha yaryar u sheega oo da-yartu marka aynan dhallinyaro ah jeclaadaan debadiyo gudaba waa laga yaabaa dadka dabaduna inay qaarkood internetkii wax inaga dhagaystaane waxa ay xiiseeyaanuun ninkaa ay jeclaatay si aan loogu diidin inay iska daba gasho laakiin islaamku waxa uu waajib ka dhigay marka gabadha la guursanayo inuu guuriyo ehelkeedu iyadoo arrin baa la weydiinayaa ninkan ma jeceshay haa meher maxaa lagaaga dhigaa waxa iyo waxa ah guurkiisana waa inay raalli ka tahay meherka wixii ay qabsanaysanna waa inay sheegato laakiin in caqadkii la sameeyo oo la meheriyo cidda uu ka ansixi karayo ee fulin karaysaa waxa weeyaan waa ehelkeeda waxa kaloo dhacdo oo dadku ay hadal hayaan oo ay yidhaahdaan carmashu iyadaa isguurisa baynu ka maqallaa weliba dumarka qaarkood carmashu weli uma baahna oo iyadaa isguurisa wax jira maaha taas qadiyadda wilaayadda iyo mas-uulka inantu inuu guuriyo carmashuna way u baahan tahay inanta da-da yarina way u baahan tahay marka taa ayaan lagu lugo-in gabadhu markay nin guursanayso ama debad ha joogto ama gudo waxa waajib ah oo guurkeeduna uu ku ansixi karayaa inay ehelkeeda soo marto inantan ehel baa lagu ogaa iyagaa soo koriyo jeclaayoo u hanweynaa meesha dibudejin loogu samaynayo iyo dadka lagu wareejinayo waa inay ehelkeedu ogaadaan marka la guursanayana waa in la ogaado marka la furayana waa in la ogaado waayo arrinku waa arrin qoys baa la dhisayaa wax sahlan maaha marka taana dumarka u sheega dad badan baa marka dambe waxayna weydiiyaan waanu ismehersannay ninka ah iyadoon waalidkaygu ogayna wax ma ka jiraan arrintaa waxay soo qaadaan un dumarku wakhtiga ay ninkii ay ismehersadeen isa seegaan wakhtigaasunbay soo qaadaan laakiin bilowgaa lagaba maarmaana waxyaabaha dardaaranada rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu dumarow idi siiye waxaa ka mid ah wasiyatu annisaa bixuquuqi aswaajihin raggooda inay u samafalaan raggii waa inaga maqan yahay samafalka iyagana waa lagu leeyahay ragga laakiin idinkaa maanta jooga qaybtiinaynu soo qaadan ilaahay baa wuxuu uhi ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i di lqurbaa wayanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar ilaahay wuxuu idin farayaa cadaaladda iyo samafalka qaraabada in wax la siiyo xumaanta iyo foolxumada ayuu idiin diidayaa iyo macsiyada marka cid loo samafalo oo loo cadaalad sameeyo waxa kow ka ah saygan kula nool ee nolosha wada qaadanaysa ee aabbaha u ah ubadkaaga ee aad ku faanaysa isaguna kugu faanaya ubadkaagana sharafta iyo karaamada abtirsiimadiisa ay ka heleen adigiyo iyaguba kaasaa kow ka ah muu yaraysanin arrintaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin hablaha iyo hooyooyinka muslimaadka ah mar walba muxaadaro kula kulma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrintaa aad iyo aad buu ugu adkaynayay waayo waa halka aayaha ooridu uu ku xidhan yahay aayaheedii baa ka xumaaday haddii saygii ka xumaado ama ay isla silanaadaan hadduu hagaagana adduun iyo aakhira waa u hagaagay ruux dumaraa u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a xadiidkaasi
nasaa'i xaakim ba waa warinayaan oo saxiix baa lagu tilmaamay waxa uu leeyahay isagoo nabigu gabadhii la hadlay adaati zawjin anti miyaad say leedahay ama nin xaas miyaad leedahay qaalat nacam haa waan leeyahay bayt markaa nabigu waxa uu yidhi kayfa anti lah oo sideebaad u tahay halkee kala joogtaan ma isku wanaagsantihiin mase ma u samafalaysa qaalat maa aaluuh ilaa maa cajaztu can waxaan ka hakranayaa ma jirta bayt dee itaalkayga waan u samafalaa wuu soo ururiyey nebigu wax fara badan oo kale umuu sheegina maqaalad kooban buu sheego waxau idhi fandurii ayna anti minhu fa innamaa huwa jannatuki aw naaruki bal hadda ka fiirsa halkaad ninkaa ka taagan tahay iyo miisaanka adag sida ay isku tihiin iyo sidaad ugu samafashay iyo ina xaqiisa siisiya in kale ka fiirso ama waa jannadaada ama waa naartaada haddaad u samafashana jannuu kuu yahay haddii oo jannaad ku mutaysanaysaa haddii aad ku xun tahayna waad ku naar mutaysanaysaa mar kale xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan abi hurayra uu warinayo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxau idhi laa tasumi almar'atu idaa kaana zawjuha shaahidan ilaa biidnih cibaadooyinkii sunnaha ahaa ee ilaahay loo gudanayay ayuu nebi maxamed tilmaamayaa xaqii ninku inuu ka horaynayo markaa wuxuu idhi gabadhu marka ay doonayso soom sunno ah ninkeeduna uu joogo oo aanu maqnayn iyay soomin iyadoo ka fasax qaadata mooyaane hadday salaad tukanayso sunno ah iyo hadday soom sunno ah soomayso iyo haddii ay xaj sunno ah la imanayso iyo hadday sadaqa sunno ah bixinayso waa inay kala tashatay intaba waayo tashigiisa iyo ogolaanshihiisuna waa waajib cibaadadan sunnaha ay la imanaysaana waa sunne sunnahaasiiba waxa ka horeynaya waajibka ka horeynaya marka waajibka iyo sunnaha waajibka horeynaya sidaasuu ku tarbiyadeynaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam wa aydan yuraqib fi husn al-ashra wuxuu dumarkii jeclaysiinayaa inay ninkooda si wanaagsan ula noolaadaan si ay uga nastaan qalbiga si ay uga nastaan maskaxda si noloshooda ay ugu qurux badnaato xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan oo ibnu cumar uu warinayo ayaa wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dumarku la hadlaya markaa waxa uu leeyahay dumarkiiyo sadaqaysta oo sadaqa bixiya fa innii ra'aytukunna akthara ahli an-naar ala macna al-hadith sadaqa bixiya sadaqadu waxay ka noqotaa gaashaan bay naarta ka tahay oo ilaahay baa naarta gaashaan uga dhigayo waa lagaaga xijaabaya sadaqada sababta ula imanaysaan waxa weeye waxaan idin arkay idinka oo ku badan naarta haddii ruux dumar ay weydiisay tiri maxay ku dhacday taasi waxa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir nacdashana waa badistaan iyo cayda mara idinku iscaydaan mara isdhaliishaan mara caruurta caydaan oo nacdashaasaa badisaan saygana waa ka gaalowdaan macnaa eraygii loo isticmaali lahaa marka ilaahay laga gaaloobo ayuu nabigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam markaa isagoo idiin samafalayabaa marka ay saseegtaan ayuunbaad tidhaahdaan wax khayra weligay kaamaan aragoo waxaad dafirtaan wixii samafalo idiin sameeyey ninku dardaaranada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah wasiyatuhu bixifdi lbuyuut wuxuu nabigu u dardaarmay dumarku inay ilaaliyaan guryaha inay ilaaliyaan ammaanada ay hayaan waana ta ilaahay uu ku ammaanay fii suurati nisaa dumarka faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilghayb bimaa xafida allah dumarka oo wanaagsan ilaahay wuxuu ku ammaanay laba arrimood aqbalkeen iyo ilaalin markuu ninkoodu amar wanaagsan u soo jeediyu amro ama diin ha ahaato ama dadnimo ha ahaato guriga ubadka amar kolkuu keeno ila isagaa meesha ka aamirkii ah oo go-aankii lehe way aqbalaan iyagoo arrinkii ilaahayna aqbalay ta ilaahay baa u horaysa amarka ninkaa ku xiga intaa kadibna waxa ilaahay uu ku ammaanay xaafidaat waa kuwa ilaaliya maxay ilaaliyaan gurigooda ilaalinayaan naftooda ilaalinayaan waxay ilaalinayaan ubadkooda adduunka intaasoo dhan way ilaaliyaan waxyaabuhu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka digay waxa ka mid ah cadamu idkhaalihinna almaxaarima calayhin ragga
ajaanibta inaanay guriga ku soo dhaxdaynin iyadoo cawradoodu ay bannaan tahay ceeb baa ka dhalanaysa ama iyadoo ninku aanu ogolayn soo galidiisa maalin maalmaha ka mid ah baa nebigu wuxuu yidhi iyaakum wadukhuula cala annisaa waa ragoo waxaan idiin diidanahay xadiidku bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay dumarka u galidooda iska ilaaliya oo marka ay ku raaxaysanayaan guryahooda waa inuu gurigii u noqdaa zay alxarami alaamin xaram aaminahoo kale oo qofkii aanu warwaraynin oonu walaacaynin oo qofkii aanu hareerihiisa eegaynin waa inuu qofkii rar dhigan karaayo uu nafisi karaa haddaba ha ugu gelina haddaa ragga tihiin dumarka guryahooda gurigaa ay ku asturan yihiin u daaya markaa ninbaa wuxuu idhi bal ka waranka xamka la idhaahdo ama sayga ragga ay isxigaan ee ninka aqaaribtiisa walaaladii iyo ilmaadeeradii iyo kuwaa bal ka waran markaa nebigu waxau idhi alxamu huwa almowt kaasi waaba geeri oo dadku had iyo jeer kama fikiraan arrintiisa waxaa laga yaabaa in la yska fudaydsado marka taasoo kalena nebigu ka digayaa waa meelaha akhlaaq xumadu ay ka timaado waa meelaha aafaadka iyo asturna-aanta mujtamaca iyo dhibkuu ka yimaado wey dardaaranadu nebigu bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a dumarka kula hadlay hadday wax bixinayaan ay guriga wax ka bixinayaan waxbixintaasi waa inay noqotaa min hayri sarfin midaan xadgudub ku jirin ee loo eegayo maslaxadda qoyska marka u horeeya dabeetana maslaxadda ummadda waa inay iskala raali yihiin ninka iyo gabadhu wixii la bixinayo ama raashinka ha laga bixiyo ama biilka ha laga bixiyo ama alaabta guriga ha laga bixiyo waa laba qof oo wada nololna wada qaadanaya wixii markaa xurguf iyo xumaan ku keenaya dhexdooda in marka horeba la hor joogsado wey nebigu wuxuu dhiiriyey arrintaasuu ka warrama wuxuu ihi gabadhu iyo idan la-aan waxba ku bixin dabeetana waa la weydiiyey wuxuu ihi wala tacaama yaa rasuul allah bal raashinkana ka warran raashinka la bixinaya guriga wuxuu markaa yidhi daaka afdalu amwaalina dee raashinkaaba xoolaha iyaga u fadli badan kharashka iyaga iyo biilku wuxuu ka baxaaba haddaan ummadda islaamka nahay dee raashinbuuba ku baxaya marka kaa laftiisana wax la isla ogol yahay waa inuu noqdaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu dhiiriyey inay gabadhu wax bixiso iyadoo uu ugu bushaareeyey ninkuna ajriga inuu badh leeyahay iyaduna ajriga badh ay leedahay laakiin midhka mar walba kasii wanaagsani waxa weeye wadatashiga intii ha dhowto labada qof wax dhaawac ku keena xidhiidhkooda uu iman lahaa wadatashiga iyo iswargelinta waxyaabaha dardaanadana rasuulku sala allahu calayhi wasalam dumarka uu siiyey waxaa ka mid a allaa yadacna thiyaab ilaa fi lbuyuut inaanay dharkooda dhigin oo jidhkooda aanay qaawinin iyo cawradooda ilaa qolkeeda hurdada marka ay joogto mooyaane waxa uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa min imra'atin tadacu thiyaabaha fii gayri baytiha ilaa hatakat isitra baynaha wa bayna rabbiha xadiidkaasoo darajadiisa xasan lagu tilmaamay ruuxa dumarka ahi gurigeeda meel aan ahayn hadday marada dhigato oo ay isku qaawiso waxa ay iska qaaday daahii u dhaxeeyey iyada iyo ilaaheeda macnaha insaan bani aadam hortii inay isku qaawisay moodin laakiin ilaahay bay isku hor qaawisay taa ha iska ilaaliso marka taasina arrin sahlan ma aha dumarka qaarkood baa marka laga yaabo inay meelaha u baxaan iyadoo dad ajaanibi ay arkayaan ama dumar ajaanibiha ay arkayaan ayaa maradooda ay dhigaan ha u fahmin mara dhigideed marka laga warramayo jidhkoo dhan oo la wada qaawiyo haddaad cawradii badh qaawiso maradiioo dee aad dhigtunbay la mid tahay madaxiibay gabadhii qaawisay cagiibay qaawisay gacmiibay qaawisay deyntiiba waa cawro idan markaa asturnaantu waa qurux qaawanaantuna waa foolxumo xishoodku wuu wanaagsan yahay wuxuuse kusii wanaagsan yahay dumarka ayuu kusii fiican yahay wakhtiyadan dambena dadka aan diinta lahayna gaaladu waxay ilbaxnimo u arkaan oo ay fariidnimo u arkaan in dumarka loo faydfaydo tadhakadeeda qaawisaaba xariifadoo mutacalimadoo ilbaxada bay ku leeyihiin ta surwaalka isku taagta ta dharka isku geejisa ta laakiin jidhkeeda asturta waxaa la odhanayaa casri hore iyo qarni horey nooshahay marka waa shaydaanka hadallada ka soo imanayay ka mid tahay taas idan markaa gabadha muslimadda ahi jidhkeeda way asturaysaa waana ilaalinaysaa xijaabka ma dhigayso inta ay ka maqan tahay gurigeeda daayarta waa in sidaa lagu carbiyo
dadka dabaduna hablahooda ay u sheegaan xijaabkuna uu yahay xijaab sharci ah ilaahay baa ku adoonsaday dardaaranada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa kamida inay gabadhu ku faanto inay sharaf u tahayna ay u aragto ajrina ka baadi doonto shaqaynta ay ka shaqaynayso gurigeeda ama ay u shaqaynayso ubadkeeda iyo odaygeeda ama ehelkeedaba ay guriga uga shaqaynayso waa ajri weyn baa ugu jira waa ciidamu ajri almar'ati ala khidmatiha fi bayti zawjiha guriga ninkeeda marka ay ka shaqaynayso waa halka ay cisiga iyo sharafta iyo ajriga iyo abaalmarinta ka helayso taa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tarbiyeeyay hablihiisii iyo hooyooyinkii muslimaadka ahaa waxa u soo cabatay maalin maalmaha kamida inantii uu jeclaa ee Faadimatu Zahra taasoo caruurtiisaba kaga soo hadhay ayaa u soo cabatay intii leeyahay dhinteen kuwii kale Faadimu baa ka dambeysay iyaduna 6 bilood rasuulka sallallahu alayhi wasallam laakiin 6dii caruur ahaa ee kale way ka sii geeri horeeyeen nabi maxamed Faadima waxay ka cabanaysaa shaqada guriga aaba farihi baa baxay dhibaato badan baa iga soo gaadhay aduguna adoomad qaybisaa iyo shaqaale oo meelaha laga helay daaba maxaad shaqaale ii siin weyday nabigu digri buu la qimay calayhi salaatu wasalaam aaba gurigaaga ka shaqeeyo hawlahaaga iska qabso odaygaaga u shaqee waxaanaad akhridaa tasbiix iyo takbiir iyo tahmiid subxaanallahi 3 jeer walxamdulillah 3 jeer wallahu akbar 3 jeer digrigaa wad buuri digrigaasaa tacabka qofka ka qaada oo qofku markuu kitchenka ku jiro hadduu halkan quraan siraato isaguna wuxuu akhriyayaa uu digri noqdo guriga markuu masaxay u shaqaynayo uu digri wado tacabka ka yaraanayo hadduu hees iyo jaas siraatana qalbigaasi madoobaanaya uu si naashifaya sidaas uu ku daweeyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam inantii muu u dirin wax shaqaale ah kadalik sidoo kale asma bint abubakar dumaashidii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo daa Aisha ay walaalahaayeen ayaa iyaduna waxa ay ka cabatay dhibaatada ka soo gaaraysay guriga iyo shaqada ay u shaqaynaysa gaadiidka oo fardihii lagu duulaya ninkeedu dagaal ku tigay iyo awrkii beerta lagu qodayay intaba dhib baa ka soo gaarayay u shaqaynaysa calafka ninka markay diyaarisa gaadiidka calafkiisa diyaarinaysa iyadoo nabi maxamed arkay madaxa ku soo qaadaysay lafa timireed si ay ugu ridiqdo gaadiidka oo ay u intifaacsado marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku hambalyeynay in ajri leeyihiin waa u sheegay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay iyadoo asma socota oo dhakada ku sida gaadiidka alaabta markaas dabeedna gaadiidka uu joojiyay si uu la soo raacdo iska socobay lahayd aniga sii wadaya mar dambe abubakar u cabatay wuxuu ii soo raadiyay tiri qof shaqaala ayuu ii soo helay فكأنما اعتقني واحد موديس إنه حرية لبعتها هيستي مركا تاسنا ومرجرة أو أي تهينا كصبرتان إلهينا وجود واتان أمان إيا شرفنا وإذين تاي أجرنا وكيليسان نبي عليه الصلاة والسلام دردارنا ذو دمر كسية وحكم ذا قبرنا إن يكون أضيع ذا سيجا وحي أنا هين معصية يدمبي wixii aan ahayn wixii macsiya ee dambiya ilaahay lagu caasiyo laga ma yeelayo ninka laakiin wixii samafal ah ee danta reerka iyo diintaba u dana waa inay ku adeecdo oo aqbalkeen noqoto markaas wuxuu ka warramayaa dumarka taw wanaagsan alladhi tasurruhu idha nadara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi dumar waxa ugu wanaagsan ninkeeda ka farxinaysa isagaba saasoo kale baa laga doonaya markuu amrana adeecaysa wixii وحما أنا أنكو كينين نفتي ذا يمال كيس دردار النظر رسولك صلى الله عليه وسلم ودمر كوتشيدية وحكم ذا الترهيب من أن تسأل المرأة زوجها طلاقا بغير سبب وحقاد قد النبي محمد قبل إني ننكيد الطلقة ويديسة السبب العام سبب شرعي هدي ترتها هدي سبب شرعي آني ترين وكدق رسولك وحاو النبي يقول لها أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة قبل السبب الآن كذا ويدي سنة سئنوا فروه وحكا حرامة جنة أرتيدا ما به ليس معنى هذا ما قال يسوي
haddiis inay sababtani sharci tahay iyo in kalena yaa qiyaasaya culimada weydiinaysa culimada waxay weydiinaysaa sababtani tii ay dalqad ku weydiisan lahayd ninka ma tahay ila iyadu isqancin mayso sababtani inay sharci tahay inaanay sharciayn ma miisaami karto oo aqoontii shareecadii aqoon uma leh marka waa inay culimada kala tashatay tiraado sababtaasi ma ii banayn kartaa inaan ninkii dalqad weydiisto waxaasuu sameeyey oo waxaasuu sameeyey oo waxaasuu sameeyey intaasoo dhan oo uu sameeyey ma ii fasixi karaysaa dalqad inaan weydiisto hadduu caalimkii fatwada bixinaya yidhaahda haa marka ama qaadigii yidhaahdo markaa way ku tallaabsan kartaa laakiin ta la diidayaa waxa weeye qoyskii qaaliga ahaa aynu han weynayn ee bulshadeenna ka mid ahaa ee ummaddu ay ku soo hiranaysay ee hareeraha laga taagnaa in cadho yar lagu burburiyo oo iyaduna markay cadhooto ay kalarhka ku dhegto oy tidhaahda halkaa waraaqdii dhig iyadoon wax balaayo ahi jirin ama isagiina marka uu cadhoodo inuu dalqadii ku karbaasho oo uwaanku furi ugu hanjabo labaduba waa wax mamnuuca oo qoyska iyo mujtamaca midnaba aan qabaninba waxa kale uu diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam oo tan la socota inay gabadhu ku dhiirigelisa ninka furiinka oo wax furiinkii ku abaabulo ay samayso oo iyadoo lacag la ay tidhaahda hebelow haddii aad dalqadda isiiso adduun intaa la eg baan ku siin doonaa macnaha waxaa loo yaqaanaa xagga shareecadda khulci baa loo yaqaanaa khulci ka dhex siibasho gabadhii ay ka dhex siibato xidhiidhkii ninka markaasuu taana ka digay nebigu wuxuu leeyahay almukhtalicaatu walmuntasicaatu hunna almunaafiqaat xadiidku waa saxiix sida silsiladda albaaniya uu ku tasxiixinaya sheekh dumarka raggooda dalqadda ka iibsanaya ee ninkii oo adduunyo jecel adduunyo hunguriga kaga soo ridaysa si ay warqadda uga qaadato waa munaafiqaad buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kol haddii aanay jirin wax sababahay waxyaabaha uu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam ee dardaaranadaas waxaa ka mid ah inay gabadhii ninkii isu egaysiiso kuma badna gudaha laakiin dadka dabadda way ku badan tahay oo markii uu yimi ciirciirka iyo daciifnimada ku dhaqankii diintu waxay iska dhacday ragguna inuu isu egaysiiyo dumarka oo weesaakhiya uu qaata iyo silis codkiisana cod yaroo niiqniiqa uu ka dhigo gabadhiina ay isu egaysiiso ninka ay isu egaysiiso intay shaar iyo surwaal gashato timahana ay gaabiso codkana ay weynaysay nin iska dhigta markaa arrintaasi arrin dhacdo weeye oo dadka dabadaha lagu arkayo weliba qaar soomaaliya baad ku arkaysaa arrintaasina wuu ka digay rasuulka ilaahay oo waa dardaaranaduu siiyey dumarka calayhi salaatu wasalaam lacana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam almutarajilaati min annisaa والمخنثين من الرجال وقال أخرجوهم من بيوتكم وحديث البخاري وحو النبي قلنا عدل دوشا وقطوري دمر كرقة إسوء قيسية انت اينو شاقني قول إيا فعل انت بيسوء قيسينيس إيا رقة مخنثين تلايرا مخنث كوحوين انك دمر كيسوء قيسية كوانا ونعدل وحو لقريه نكاريا يا أوبت كايدين كايبتلينين أخلاق حمد أيه ومدة جالسيننا مستافرية أما وإن لما مستافرية أما الحرا وأيه نبي قال عدلي عليه الصلاة والسلام وحسهلنا معها وأيه قفكني وحأوسلوا سيدوا إلهي وأبوري وحأولاي إلهي وحن كون أكسنا سيدن بان كون أكسنا قبل يحيى هذا مركز قبل يقدك تواد خلاص إن أدني يقدك تابه نينكينا إلهي واعتراض يا وكهر من يا وحلينا قبل يقدك تابه أرنت السنة وأرن آدو فالحون ويا waxyaabaha uu ka digay nabigu calayhi salaatu wasalaam ama sharcigu ka digaya waxa kamida inay gabadhu u qasdo inay ilmaha iska soo rido inay ilmihii ilaahay caloosheeda uu ku abuuray ay iska soo rido sababtu wax kastaba ha ahaato kol hadduu ilmo u calool galo inay iska soo ridaa waa mamnuuc taasina way dhacdaa marar badan dadka qaarkood oo iimaankoodu daciif yahay way ku dhacdaa waydal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat waa wax la isweydiin doono qiyaamaha naftan maxaa lagu dilay haddii tallaabooyin noocaas la qaadayo waa arrin si miisaaman loo galay oo culimada laga tashaday oo dhakhaatiirta lagala tashaday oo la isu eegay dhibka ilmaha iyo dhibka hooyada waxaasoo dhan oo la isu miisaamo mooyaane arrin gabadhu si ciyaar ay ugu tallaabsan karto waa arrin qalada weeye xataa tii qaaday xamli iyo uur sine ah markii hore sinay ku dhacdo dembi ah dembiga ka sii weyni waxa weeye naf bani aadama inay goysay oo ubadkeeda ah oo ay dhashay ama ha tuurto ama calooshaba ha ka soo rido
arrimaha noocaasana waxa keena cifalaanta iyo dhowrsoonaan la'aanta iyo qaawanaanta iyo rag iyo dumarka isdhex qaadaya iyo anshax la'aanta iyo islaamkoo dadka ka daciifa waxyaabahaasa keena marka taasina in aad iyo aad dumarku ay uga feejignaadaan ama ha yaraado ama ha weynaado oo aan lagu dhiiranin weeye ilaa dhib jiro oo dee culimada lagala tashada mooyaane waxyaabuhu nabigu dardaarmaya waxa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam الترهيب عن محقرات الذنوب إن إذا ذنوب تيريسن رجي دمر بو أهرنو تالا دمركو وإن أنا ذنوب تيريسن هتاي حنتاي هتاي بينتاي هتاي ورلا قادتاي هتاي اسكوديرتاي هتاي فالتاي فالد واحد سهلا ما وان في الأيام اللي كوره مشكلة ده هتمر كهيسته وحكم ده فالده أما نلا فالين يا أما قبل الرماها سيئات بيودي بدينهن وكبائر تكوتشران ماها صغائر ذنوب تيرن ماها waxay la mid yihiin sinada iyo dilka iyo waxaasay ku dhaweeyeen la leesihiin iyo sixirka iyo khamriga kuwaasay la baabihiin Aisha radiyallahu anha ama xaasaskii nabiga mid kamid ah nabiga ag fadhida waxay leedahay hasbuk min safiya annaha kada safiya waxa kaaga filan dhaliisheeda waxa kaaga filan waa caynka macnaheedu way gaaban tahay un bay tiri waa kii nabigu alayhi salaatu wasalaam kelmad bad ku dhawaaqday hadii lagu dhaxridi lahaa badweynta way casayn lahayd dhiigahan hal mar baad cantuugtay qofka oo hadii badal lagu ridi lahaa dhiig bay casayn lahayd idan marka waxyaabaha dunuubta qof walba waxaad isku daydaa inaad dhinacaaga u eexato cid kale ha u eexan qabriga marka lagu dhigo qiyaamaha lagu soo joojiyo ilaahay aad is hortaagto wixii aad ku jawaabi lahayd diyaarso wax fadeexad kugu noqda wax kugu waranaad ridaynayso kugu soo noqda iska ilaali walaalayaal carabkeena aynu ilaashana taa mowduuc kale u ahaa aad baa looga waramay dunuubta aynu yaraysana nabigu dumarka wuu uga digaya Bukhari iyo Muslim waxa ku sugan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha gabadh baa waxay ku gashay naarta bisad ay xidhay may sii daynin si ay dhulka wax uga soo cunto waxna may siinin show way wareerisay oo inta xidhay ayay sidii ku dhimatay naartay ku gashay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa dib loo geystay xayawaanka inaguna laga yaabo inaynu fudaysano maxaad u malaynaysaa qof bani aadam dhibka aad soo gaarsiiso dardaaranadu nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarka siiya waxa kamid ah annahyu cala ad-du'a cala an-nafs wal awlad inaan ubadkana la habaarin ehelkana aan la habaarin aduguna aanad is habaarin habaarku shaqadeena ma aha waa qof daciif oo liita shaqadiis inagu duco ayaa dhaqankeenu yahay inaynu isu ducayno inaynu hadal wanaagsan isdiraahno inaynu isa soo dhaweynayno marxabaysiino dhaqanka muslimiintu waa nooca weey saxaabiyada Salama la yiraahdo xaasaskii nabiga kamidii waxa ay leedahay xadiidka muslim ku sugan nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaa'ikata yu'minuna ala ma taqulun naftina habarina oo ubadkiina habarina oo ehelka habarina hatta habaar la timaadaan malaa'igtuna aamiin bay oran doonta dabeetana markaas la idin aqbalay habaarki marka habaar ka dhacay u baa kugu dhacaya waa waranaad ridayso adiga kugu dhacay ka daayay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadaad caruurta karaahaysato u ducee hadaad odayga karaahaysato u ducee hadaad adigu iskarahaysato tood yaradii qadooto ilaahay bari inuu ilaahay waxan ka dul qaado wuxuu nabigu ugu bushaareynaya calayhi salaatu wasalaam dumarka muslimaadka ah bushaarooyin badan buu siiyay waxa kamid ah gabadhu dheeraad waxay leedahay oo ninka ay dheer tahay inay uurkii ku qaadayso ilmihi taasoo quraankuna si gaar ah ugu hambaliyay markay gabadhu dhimato iyadoo uur leh ayaa bushaar uu siiyay nabigu waxa uu leeyahay dadka shuhaadada ah waa 7 qofka jihaadka lagu dilo qofka caloosha u dhinta qofka daacuunku u dilo qofka biyaha ku hafta qofka ay meel ku dinto iyo qofka TB-da u dhinta ka dabka ku dhinta ee meel ku gubato wal mar'atu tamutu bi jam'in shahida gabadhu marka ay ku dhimato uurka iyadoo uur la isku dhimato iyaduna waa shahiidatu bulay rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiidkaasi waxa uu ku sugan yahay abi daawud buu ku sugan yahay isaguna waa xasan taasina waa mid jira weey waxyaabaha uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waalidka iyo waliba dumarka u dardaarmaya waxa kamid ah al-adlu bayna al-awlad mawduuca ubadka waa laga warramay baan filaya laakiin in loo cadaalad sameeyo ubadka
oo cadaaladda iyo caafimaadka iyo ilmaha adaabta wanaagsan intaba hooyadu ka qaadanaya fattaqullah wa'dilu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsada ubadka u cadaalad sameeya wiilashiya gabdhaha loo cadaalad sameeynaya qolo walba gaarkooda lagu cadaaladii adigu aroorta ka doonaysa in aabba iyo hooyo ilmuhu u cadaalad sameeya adiguna waa inaad u cadaalad samayso taasina waa mid aad iyo aad u qiimo badan oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam dumarka u dardaarmayo waxyaabuhu nabigu dumarka ku abaabuli jiray waxa kamida al-hathu fi talab al-ilm wat-tafaqquh fi ad-din dadku waa dad muslimiina diin bay leeyihiin islaamkoodu waa ka ay ku abtirsanayaan idan markaa in aqoonta sharciga ay wax ka bartaan diintoodana ay faa'iideystaan waxaan oran karaa runtii taa way ku ammaanayn dumarku kuwooda waaweyn iyo kuwa yaryariba intaan arkay debad iyo gudaba meesha wax lagu baranayo dumarkunbaa u badan muxaadaraadka iyagaa u badan meelaha la isugu imanayo duruusta lagu baranayo iyagaa u badan madaariska iyagaa u badan raggu qaybina way qaylaysaa qaybina siyaasad bay ku hawlan yihiin iyo mafrish iyo huha waxaan waxba uga faa'iido ahayn goodhowna marka wax yari ku yimaadaan ee su'aasha la isweydiiyo waxa laga yaabaa inay iyadu ka jawaabto markay guriga isugu yimaadaan oo isagu ka jawaabi kari waayo waa ayaan darra haysata ragga weyn marka taasina in diintiina wax ka barataan hadaa diintiina wax ka barataan ubadkiina anfici karaysa waxa jirta wadanka la yiraahdo Mauritania dadka dhalinyarada ka yimaada jaamacadaha ka yimaada way ka duwan yihiin dadka kale caalamul islaami markay tagaan dhalinyaradoodu way ka xifdi badan yihiin oo ay ka aqoon badan yihiin dhalinyarada caalamka kale ka yimaada sababta markii la eegay waxa weeye hooyooyinkood ayaa soo bara tafsiirka quraanka iyo cilmiga xadiidka waxa laga yaabaa hooyadii iyo ayeeyadii inay Bukhari iyo Muslim kaba xafidsan yihiin marka dee ilmo hooyadii guriga wax ugu soo dhigaysaa wuu ka dheeraynayaa kuwa kale marka adalabu fi ilmi sharci cilmiga inay gabadhi barato oo diinta Ilaahay ay fahamto ama cajaladaha ka fahamto ama qalabkan la isku baahiyo ama iyagu dhexdooda waxay isu dhigaan hablaha had iyo jeer wax yaqaana ee aqoonta leh ee idin kamida waa in la suuq geliyo waynaydaan ka sugin inaan daayar iyo wadaad wax idin dhigo kaliya habla badan oo waxa jira si fiican wax u fahamsan marka intoo dumarkiinu koox ku urursataan guryaha ama fasalada iyo madaariska hablahaasi waa in la soo saaro waa in aqoontooda la kobciyo waa in tamarta maskaxdooda laga faa'iideeyo iyagana dhiirigelin bay u noqonaysaa cilmigii sharciga ahaa bay baran karayaan cadalaadkoodii iyo muruqyadoodii maskaxda meel ay ku baahiyaanna way heli karayaan cilmigina waa ku tartamaysa oo inantii markay arkaysa inanta muallimada ee fatwada bixinaysa ama gaadhay mustawa sare de kuwii kale hablaheena kalena way higsanayaan marka laakiin kuwa aamusiisaan waxba ka faa'iideysan weydaan aqoontoodii ee rag un doontaan inay wax idin sheegaan waxa dhici doona marka hableena inay waxba baran waayaan marka at-tafaqquh fi diin in cilmigii la barta diintiina la fahmo waa laba arrimood oo si kala dheeraada dalabul ilmi wat-tafaqquh fihi cilmigii oo la barto iyo isagoo la fahmo laba arrimood oo si kala dheer weey waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay cilmiga la yaqaanaan laakiin fahamkii uu ka maqan yahay fahamku waxa weeye inaad ogaato cilmigani inuu isagu ku hogaaminayo cilmigani inuu isagu ku ilaalinayo cilmigani inuu isagu yahay cibaado cilmigan in ilaahay lagu garto subhanahu wa ta'ala cilmigani inuu yahay nicma min ni'amillah oo lagu weydiin doono hadaad ku amal fali weyda qiyaamaha dadka kale aad ka cadaab badanayso marka waa inaad fahamtaa diintan inuu ilaahay ugu talagalay basharkan ragga loogu talagalay oo dumarka loogu talagalay oo ilaahay adoomaha uma kala eexdo raggana uma eexdo dumarkana ma fogeeyo nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam liiska raggabaha ku jiro raggabaha kamid ahaadee ragga iyo dumarka labaduba waa ummadiisii aabbaha u wada ahaa ee ku wada abtirsanayay diintiisa waa in qofka muslimada dumarka diinteeda ay fahamsan tahay oo cid kale oo shisheeya hadal ay ku tiri mas'ala diinteeda waa inaanay ka shaki galinayn asma bint abubakar ilaahay ka raali noqdo waxay dadkii hormuudka ahaa sida loo faa'iideysanayo culumta diinta waxay u timid dumaashigeed nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam tas'alu can ghusl al-mahid aw al-hayd waxay weydiinaysaa waa nabigu de walaasheed buu qabaa waa dumaashigeed weeye waxdana waxay su'aalaysaa sida caadada looga maydhanayo sideeba looga maydhanayaa bay leedahay dhiigan dumarku waqtiga ay ka daahir noqonayaan
marka nabigu waxa uu ta'khudhu ma'aha wa sidraha dee saabuunteedii wixii isku nadiifinaysa ha qaadato ha isnadiifiso waatii ku soo celcelinaysa lahayd kayf sideedee Aisha waatii ka qabatay tiri ana inta kugu filane iskaga kaalay bay ku lahayd nabiga maxay abateed u haysaa jecesha inay diinta si wanaagsan u fahantaabay jecesha oo wixii uu qofku garan waayo waa inuu su'aal ku keenaa iyadoo su'aashaasi ay hufan tahay iyadoo su'aashaasi ay u socoto mid ay qofkan cilmi ku faa'iideysanayso iyadoo su'aashaasi loo eegayo waqtigeeda munaasibka ah iyadoo su'aashaasi loo eegayo cidda diin ahaan qofkan si fiican u qancin karta ee amaanadan cilmiga ah aqoon u leh marka taasina waa mid qiimaheeda la weeye Sulaym gabadha la oran jiray Anas hooyadii Anas ibn Malik bay hooyo wahayd nabiga uu timi calayhi salaatu wasalaam su'aalo aad u adag oo dumarku ka xishoodaan ayay weydiinaysaa gabadha iyo maydhashadeeda iyo sababta maydhiga ayaa ay nabiga wax ka sii weydiinaysaa calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu nabigu dumarka ku abaabulay u dardaarmaya waxa kamida an-nahyu 'anil kadhibi 'ala al-atfal waxa gacanta ummadda ugu haysaan amaano weyn arrinkiina ha yaraysanina ha arkina in uu raggu idinka horeeyo yoolkiinu caynkaa noqoni laakiin ummadda gundhigeedu waa ooryaha waa guryaha cidda mas'uulka ka ah ee ubadka gacanta ku haysa sidaa ogsoon tihiin adduunyada dadku waa jiilan bacda jiil wa qarnan bacda qarnin waa qarni baa la isu daba socdaa halkan aynu ku noolahay dad baa joogo way ka tageen innaga imika joogna ummad kale ayna bedelaysa ubadka yaryar ee aynu gacanta ku hayno ee wiilal iyo gabdhaba leh waa aayaheeni waa cimrigeennii oo dheeraanayay waa mustaqbalkeena kuwa aynu higsanayna inay noo soo duceeyaan waa kuwaynu ka fikirayna bulshadeena inay diin iyo dad iyo dalba kor u qaadaan yaa gacanta ku haya idinka gacanta ku haya guriyihii bay idinla joogaan waa tarbiyadaynaysaan madaariskii baa u diraysaan aadaabtoodii baa eegaysaan marka arrinka aad gacanta ku haysaan wax weyn weeye wax sahlan maaha nabigu calayhi salaatu wasalaam amaanada isagoo hooyooyinka u xambaarinaya kuna abaabulaya waxa uu maalin maalmaha kamida la joogay asxaabtiisa gabadh kamida Abdullah ibn Amr baa wuxuu leeyahay waxa noo yimi nabiga umadiisu ka warhayo booqanayay hooyaday baa markaa anigoo yar oo halka jooga waxay tiri ya Abdullah ta'ala u'tik Abdullah yow kaalay aan ku siiye nabigu markaa wuxuu u diidayaa gabadhan inay been sheegto maxaad siinaysaa buu timir tambayt haddii aanad sidaa oran lahayn been baa ilaahay ku qori lahaa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka carruurta beenta laga ilaalinaya khiyaamada laga ilaalinaya kalsooni darrada laga ilaalinaya kalsooni darradu waa maxay waxaad ka ilaalinaysaa inuu macalinkiisa kula dhaqmo kalsooni darro inuu aabihii kula dhaqmo kalsooni darro inuu adiga kugula dhaqmo kalsooni darro intaba waad ka ilaalinaysaa markuu aabuhu amar siiyo ee uu aabba sidaa iyo sidaa iyo sidaa yeel wax wanaagsan uu sheego ee uu dhaqaaqo haddaad tidhaahdo been buu sheegayaa odaygu wuu silan yahay iska samee hooyo waxa uu sheegaya waxba kama jiraane kalsooni darraad ku abuurtay ilmaha wax laga yaabaa goordhow adigana waxba ka dhageysan maayo aabbana waxba ka dhageysan maayo waa inaad u sheegtaa tidhaahdaa sidaa aabba uu kuu sheegay weeye wax ceeba weeye waxaas hooyo iska daayo dib ha ugu noqonin marka rasuulullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam dardaaranada uu dumarka siiyay aad bay u farabadan yihiin waxa ku baran karaysa walaalayaal in diintiina wax ka faa'iideysataan fursad baa maanta haysataan aanay haysanin walaalaheena ama Soomaalida joogta dibadda aanay haysanin baa haysataan imika halka ay isugu timaadeen si dhib yar baa ku timaadeen tareen maydaan soo raacin diyaaradna maydaan soo raacin saacadana maydaan soo socon wax laga yaabaa kuwa ugu fog inay bas yar soo raaceen oo xogaa kumayaal oo kooban 10 daqiiqo ama rubcna uu la soo socday kulanka inta la eeg baa isku heli karaysaan culimada inta la eeg baa heli karaysaan madaariskiiniba agtiina malcaamadihii baa ka faa'iideysan karaysaan quraanka kariimka jaaniska wala idin weydiin doonaa aanay haysanin walaalaha muslimaadka ee ku nool meelo kala duwan oo caalamka ah marka waxa u hawl gashaan si waqtigiina iyo adduunkiinaba ugu faa'iideysan lahaydeen diinta ugu faa'iideysan lahaydeen waxay idin heli doontaan marka adduun iyo aakhiraba wax tanidiina oo bulshadiinana ku badbaadisaan ubadkiinana ku badbaadisaan aakhirana aynu naar kaga badbaadna insha Allah ta'ala marka waxaan dhiirin lahaa aqoontiina kor u qaada tardaaranadan in yar oo kooban baynu ka soo qaadanay laakiin iyagoo aad u fara badan waxaad ka heli karaysaa quraanka kariimka
waxaad ka heli karaysaa sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaad ka heli karaysaa kutubaha gaarka ah ee laga qoray ahkaamta dumarka marka waxaan oran lahaa shaydaanku si aanu idinku sheekaynin sharwadeenka iyo kufaartu si aanu idinka faa'iideysanin yool badan baa haysta dumarka balaayooyin badan baa ku jahaysan waxa loo ogyahay kaalinta ummadda islaamka ugu jiraan hadday dumarku bulshada ka xumaadaan bulshadaas way kharibantay hadday bulshada u hagaagaan dumarku waxa ay noqonaysaa bulshadaasi mid aaya leh oo qiimo badan oo horumarta ilaahay baa waxaan ka baryayaa aniga iyo idinkaba wixii aynu sheegnay inuu inagu anfaco inagana abaal mariyo oo inaga yeelo min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب الله من قلبي الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بثاني وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي